kadib virus xun oo dadka bani'aadamka oo dhan dilaya. Philip ayaa noqonaya ninka keliya ee ka nool dunida. Keligiis ayaa ka soo haraya. Muddo sanad ah ayuu keligiisa noolaanayaa. Waxa uu bilaabayaa inuu safar uu ku raadinaya bani'aadam meel ay ku nool yihiin. Waxa uu tegayaa gobol kasta. Waxa uu gaariga ku xiranaya makaroofan. Kadib waxa uu xadayaa alaabaha madxafka la dhigo. Marka uu ku guuldaraysto miishankiisa ahaa inuu arka dad bani'aadam ah oo nool, waxa uu iskaga soo laabanayaa magaaladiisii Tucson la dhaha. Waxa uu ku qoraya boorarka, "Waan noolahay." Kadib gurigiisa oo yar ayuu ka tegayaa. Waxa uu go'aansanayaa inuu dego meelo qurux badan. Wuxuu dooranaa guriga ugu weyn uguna quruxda badan. Waxa uu ku sharaxayaa guriga alaabihii uu ka soo xaday madxafka, alaabahaas oo lagu qiimeeyo billions. Maalin walba waxa uu Ilaah ka baryaa inuu arko naag, uuna ka baxo keli ahaanshaha. Waxa uu arkayaa baaburo cidna lahayn. Wuu soo wadanayaa gaariga. Waxa uu soo aadaya dukaanka. Irida wuxuu ku dhufanayaa xabad si uu u furo. Wuxuu ku dhex wareegayaa dukaanka, isagoo wax walba qaadanaya. Wuxuu jebinayaa khamri meesha yiilay, kadibna filimaan ayuu guriga keensanayaa. Marka uu keligiis yahay wuu isla ciyaarayaa. Bill marka uu keligiis ahaado, wuu isla hadlayaa. Waxa uu qabsanaa xafladda dhalashadiisa, keligiisa. Kadib waxa uu soo xasuusanayaa xilliga bani'aadamka noolaayeen. 5 bilood kadib gurigiisa waxa uu noqonaa qashin. Wuxuu iska dhaafayaa inuu nadiifiyo guriga. Bilooyin dhan ma qubaysanaya. Musqushana waxaa ka buuxsamaya caagag iyo qashin. Barkadda ayuu ugu dambayn ka dhiganaa musqul. Wuxuu ku qubaysanayaa barkad khamri wuuna ka cabayaa. Kadib waxa uu imaanayaa meel baar ah. Waxa uu ku sawiraa wejiyaal. Isagaa ka dhigaya inuu la hadlaya bani'aadam. Wuu la hadlaa. Waxa uu isku dhaafinaa cidlada. La soco Part 2.